agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay kormeer hawleed ku maray qaar kamid ah dugsiyada waxbarashada ee gobolka Saaxil ayaa saaka ururiyadii hore ku kalahay qaar kamid ah dugsiyada dawliga ah ee ku yaala magaalada Berbera isagoo ay socdaalkiisa ku helinayaan mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo sidoo kale maamulka degmada Berbera dugsiyada ay booqdeen ama ay socdaalka ku tageen waxa kamid ahaa dugsigii hore loo oran jiray Saaxil iyo sidoo kale dugsiga sare ee Bursada iyagoo halkaasina warbixino kala duwan ay ka siiyeen sida ay waxbarashadu u socoto maamulayaasha iyo qaar kamid ah macallimiinta ka howlgala dugsiyadaasi muddo dheer ka hor halkaan lagu daasadon ku fadhiisan jiray maanta ku fadhida adinku kuraasta marka deeraad alxamdulillah taanarta ku sagareera jawnay ashtaab dooniya waxbarashada ku daashan kormeerkan kadib ayaa suduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibrahim Digaale Maxamed uu ka waramay xaaladda guud ee waxbarashada gobolka Saaxil waxaanu gobolka ku mareynay degmada Berbera gaar ahaan degmada Berbera kormeer dad 7 cisha safarkaas oo agaasimaha guudna hogaankiisa ahaa waxa tiim ku koobnaa 2 qaybood qayb wasaaradda waxbarashada iyo qayb dawladda hoose ujeedaduna waxa ahayd in aan xogaal u noqono bal sida hawlihii waxbarashadu u socdaan qaar kamid ah madaxda sarsare ee wasaaradda waxbarashada ee socdaalka ku helinaya agaasimaha iyo agaasimayaal ka tirsan dawladda hoose ee Berbera iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xaaladda waxbarasho ee gobolka Saaxil ay meel wanaagsan marayso iyagoo waalidiintana u soo jeediyay inay caruurtooda dugsiyada keenaan waxaad moodaase saaka in ardayda laftooda waalidiintu aanay ku baraarugsaneyn in kowda bisha ay iskuulada lagu soo noqonayay iyadoo meelahan xeebaha ahayn ay ka horeeyeen laakiin xeebaha kowda bisha marka ilmaha wali la maqan yahay waalidka waxaan oran lahaa in waxbarashada la keeno annaga waxa naga go'an inaynu kor u soo qaadno tayadii waxbarashadu leedahay meelo far badan baa laga eegaya xaqii macallinka laga eegaya syllabuskii iyo qaabka wax u bilaabmeen baa la eegaya iskuuladii siday u diyaar yihiin baa la eegaya xukuumadda fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariim Aadan Cadde oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in degmahan ay kaalin weyn ka qaataan dardargelinta iyo kor u qaadista hawlaha waxbarasho ee gobolka Saaxil waa ku faraxsanahay kormeerka dhowrkii cisho dambeeyay uu soconayay iminka magaalada gudaheeda ilaa 3 iskuul baan 2 iskuul baan soo kormeernay marka waxaan dareemi karaynaa in farxad noo tahay maadaama dawladda hoose magaalada Berbera ay dadaal weyn gelisay waxbarashada dugsiyada hoose dhexe wasaaraduna ay si aan caadi ahayn nolol shaqeysay oo runtii aad iyo aad xoog badan oo wanaagsan oo gacmo furana agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed oo isaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa ka waramay ujeedada socdaalkiisa uu ku yimid magaalada Berbera iyo sidoo kale socdaalkan uu ku marayay dugsiyada ku yaala gobolka Saaxil runtii saaka shir baanu yeelanay maamulka dawladda hoose maayarka iyo xogayaha iyo xubnaha gobolka halkan jooga ujeedadana waxa idin laga wada hadla marka safarkii kormeerka gobolka lagu soo maray waxyaalihii ka soo baxay iyo si looga tashan lahaa marka waxyaalaha sida wax looga qaban lahaa sidoo kale maanta iminka waxaan iskuulada magaalada dhexdeeda baanu kormeer ku soo maray si aan u soo aragno marka si waxbarashadu bilaabantay iyo sida wax dhigashadu u socoto aad iyo aad baan runtii u dhiirigelinayaa dawladda hoose maamulkeeda iyo maamulka wasaaradda waxbarashada gobolka wada shaqaynta fiican ay leeyihiin si ay gacmaha isu haystaan taas waxay dhalisay marka in shaqadii waxbarashadu kor u kacdo dadaal fara badan waxa la geliyay marka iskuulada in la dayactir baa ka muuqda waxa la geliyay marka in kormeerkii la xoojiyo waxa dadaal badan dawladda hoose gelisay marka in macallimiinta la dhiirigeliyo haday tahay xagga mushaharka iyo haday xataa xagga gunadaba waxaan doonayaa waxa soo dadaalay inay soo saaraan natiijo wanaagsan maana markii ugu horeysay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo saraakiil ka socota wasaaradda si ay socdaal noocan ah ku yimaadaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera